kan aan daawadayaal ku sugannahay waa dooxa magaalada Hargeysa saacaduna waa baar labadii barkii habeenimo halbeega lagu cabiro heelkulka iyo qabow waxa uu marayaa 7 digrii oo kaliya daranyada dhaxanta midii ugu darneed ayay dugaashanayaan danyarta ku dhaqan caasimadu anagoo ka duulayna ka warhelista wacyiga ay ku sugan yihiin bulshada hayntoodu hooseyso iyo kuwa darbi jiifka ah ee ku nool gudaha magaalada Hargeysa ayaanu beegsanay goobaha ay ku nool yihiin waxaana u koorgalay balwadciga nololeed ee ay wajahayaan xilligan daran ee dhaxamaha maxay wax naga difaaca maxay kartoonka bacana dusha iska saarna marka sida u ladaan maadaama dhaxantani ay tahay mid soo dhaafisa kartoonka iyo bacda iyo maryaha xirantiinba بعود حمل اليوم وصدح بعض أحمد دستور صار محنتر محن هو يانو ماشان سحنا ما يستو ما لها إذا أي ماسك سحنا waxaa sidoo kale iyaga u sii dheer oo la nool xayawaanka noocyadiisa kala gedisan oo sida arkaysaan oo kale waxa la jooga daanyeer oo goobaha ay ku sugan yihiin kula sugan oo aad moodaa inay iska weheshadaan ba dhibaatooyinka iyo dhaxanta ka jirta gudaha magaalada Hargeysa halkan lagu hoytaa taaka saglad xaga buugeeda meelaha ka saxda maxaad la kulantaa xilliyada habeenkii oo kale xilliyada ka saxda dhaxaniga ka wata bulshada Soomaaliyeed idilkeed ayay gurmad ka rabaan waxayna danyartani ku nool yihiin dabaqada ugu hooseysa ee Soomaaliland Hargeysa oo caasimad u ah Soomaaliland qiyaastii 1 milyan oo ruux ayaa lagu tilmaamaa inay ku nool yihiin waxaana xusid mudan in maalqabeennada xukuumadda iyo taajiriinta midna aanay inta badani waa Soomaaliland aysan daymo naxariis leh ku eegin kuwooda tabaalaysan ee danyarta ururka gargaarka caalamiga ah ee Alpha Trust oo ah urur taakuleeya danyarta Soomaaliyeed ayaa ka qayb qaatay xaaladda adag ee ka jirta guud ahaan magaalada Hargeysa waxayna deeq ka kooban bustayaal jaakadaha dhaxanta ay gaarsiiyeen kaamam kamida kuwa danyartu ku sugan tahay ee magaalada Hargeysa qaar kamida dhibanayaasha ay hayntoodu hooseyso oo la hadlayay telefishinka caalamiga ah Universal ayaa ka mahad celiyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen ururka mutadawiciinta danyarta ee Alpha Trust ururka Alpha Trust aadi aad baan u mahadcelinayna khayr Allah siiyo sayno dhibin Allah u dhiibo oo qabo baan dareemay imkaanigii ubadkaygiba aad iyo aad baan faraxsanahay ururka dhalinyarada Alpha Trust ayaan mahad u celinayna ilaahay kana arki ka soo saareen miisaanka xasanaadka Allah ugu daro alaabta ayna siiyeen inagu mahad celinayna wax badan bay noo tareysay maxay dhaxanta ay ku gaanaan haysan inagu mahad celinayna ay noo keeneen waan diga guddoonay bustayaasha noo keenteen waana ku mahadsantahay ururka Alpha Trust ayna mahad celinayna wallahi aad u weyn baan qabnaa dhaxan baan hayso imankan dibadid caynina ilaa kharaysay dhaxanta sano kaga haysanana maxay ma jeceliina dadka loo keeno koolkiyo dhar waad mahadsantihiin cimrigana Allah idin dheeriyo ceebtiinana Allah asturo cimri dheerna Allah idin siiyo ilaahay baan u mahad celinaynaa ururkana waa u mahad celinaynaa Fatras inkastoo baahida ka jirta Hargeysa iyo deeqdani ay kala badan yihiin ayaa haddana waxa ay deeqdani ka saartay marxaladii dhaxameed ee ka jiray qaar kamida qoysaska danyarta ah ee gacanta ururkaasi ay gaadhay ceelna uma qodna cidina uma maqna waxayna naawilayaan rajada alle subxaanahu wa ta'ala najiib cabdiwali cabdixiis telefishinka caalamiga Universal magaalada Hargeysa